haddii qof aad isjeclaadeen uu kaa tago, ha murugoon, hama tegin, ha isgubin, cuntadana ha ka soomin, heesa badanna ha isku maaweelin. Fiiri naftaada inaad nooshahay oo aad neefsanayso, kadibna horay u wada noloshaada. U sheeg qalbigaaga in qof kaa tegay aysan ruuxdaada kaa tegin. Xushmad la'aan jacaylku waa lumaa, daryeel la'aanna jacaylku waa caajis, daacad la'aanna jacaylku farxad ma leh, aaminaad la'aanna jacaylku waa mid aan deganayn. Goortii aad tiraahdo waan ku jeclahay, waxaad ballan ku samaynaysaa qof kale qalbigiisa. Waa inaad ku muujisaa ficil si aad u caddayso. Jacaylku ma aha qiiro keliya, jacaylku waa ficil. Jacaylku ma aha dareen keliya, jacaylku waa daryeel. Qofka sida dhabta ah kuu jecel wuxuu kaa hor istaagaa inaad dembi samayso. Qofka aan sida rasmiga ah kuu jeclayn wuxuu kugu dhiirigeliyaa xumaan iyo inaad dembi samayso. Dad badan oo aragtida wejiga keliya wax ku jeclaada, gadaal bay ka qoomamayaan. Sababtoo ah jacaylku marnaba kama dhasho quruxda wejiga, balse wuxuu ka dhashaa quruxda qalbiga. Intaadan qof jeclaan, marka hore fiiri inuu naftiisa jecel yahay. Haddii uusan naftiisa jeclayn, adiguna jacaylku ma siin karo. Goortii uu qofku jecel yahay ma aha had iyo jeer inay afka ka sheegaan, waxaad markasta ka garan kartaa habka ay kula dhaqmaan. Ha u beddelin midabkaaga iyo naftaada si dadka kale kuu jeclaadaan. Ogow, qofka aad tahay, dadka saxda ah ayaa kugu jeclaanaya. Dadka